Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta soo dhawaada halkan waa janalka faaliyaha dhadhaab alaba kala socotaan warbixino ku saabsan xerooyinka dhadhaab soo dhawaada wararka ugu muhiimsan ee xiin wafdiga maanta imaaday xerooyinka dhadhaab arrimaha buufiska arrimaha diiwaangeliska ee dadka cusub iyo dadka manifesta la siinayo soo dhawaada wararkaas oo faahfaahsan haddii aan ku bilaabo arrimaha baahnaha wuxuu ka socdaa xerada ifo diiwaangelinta cusub xerada ifo ayaa ka socotaa ifo ayaa laga diiwaangelinaya diiwaangeliska waa inaad soo marto shanidhirkaaga magaca u geyso kadib uu ku gudbiyo sidaas ayaa kaarka boonada ku helaysaa kadibna waxaa kaloo ka socda xerada ifo in manifest iyo kaar lagu siiyo waxaa soo maraysa dowladda kenya faraa laga qaadaya waayo lama ogolo nin kenyaan ah in uu isu diiwaangeliyo qaxooti ahaan oo ogtihiin 2019 dad badan oo kenyaan ah ayaa ku dhibooday in qaxooti ay shaqo u waayeen ayagoo kenyaan ah shaqo ay waayeen waa laga bixiyey hadda dowladda kenya way kasoo horjeedaa mana ogolo faraha lagaa soo baaray nairobi loo dirayaa farahaas haddii imaadaan hadda kenyaanta laguma diiwaangelin haddii kenyaan ahayn waxaa lagu dirayaa hay'adda UNHCR si ay ku diiwaangeliso ay ku siiso kaar iyo manifest dadkaasi waxaa la geyn doonaa xarada ifo 2 ama ifo 2 saa u taqaaniin ayaa la geyn doonaa dad badan ayaa kaara la siiyey manifest la siiyey bamba jikula la siiyey oo doorkii hataa suul saar ku qaatay marka ifo ay ka socotaa ilaa bish afraad si hadda warbixinta hoose aan ku helay ilaa bish afraad ifo ay ka socon doontaa kadibna waxaa la imaan doonaa xerada dhagaxley saa ogtihiinba dad badan ayaa xerada dhagaxley ku sugaya oo diyaar u ah inay arrintaas ay galaan shaqaalaha hataa contract ay saxiixeen oo incentive qaxootiga ka shaqeyn lahaa contract ay saxiixeen ayaa contractooda way saxiixeen diyaar ay u yihiin hay-addana diyaar ay u tahay waan imaan doonaan mar dhown insha allah waxaan filayaa in xerada dhagaxley laga bilaabi doono haddii aan u gudbo arrimaha wafdiga maanta waxaa imaaday hay-adda care international ayaa maanta wafdi u imaaday xerada buulbakti ay tageen buulbakti wafdigaas waxaa ka imaaday waddanka germany saa ogtihiin hay-adda care waa hay-ad u weyn xerooyinka dhadhaaf haddii la dhaho haddii la fiiriyo hay-adda care waa hooyadii qaxootiga haddii aad dib u milicsano hay-adda care wax badan ayay qabatay hadda kuma soo koobi karno halkan beri bay ahayd care wax kasta care hadda haddii aad fiiriso meesha raashinka dadka waxay dhahayaan care laakiin hay'ad kale ayaa joogto television live laakiin qofka haddii la dhaho intee joogtaa care ayuu ku leeyahay si care dadka ay ula qabsadeen biyay ka shaqayn jireen waxbarasho dadka hadda ugu muhiimsan xerada dhadhaab dhalinyarada qaxootiga waxbaratay dadkooda ugu muhiimsan care ayaa waxbarasho soo bartay both primary iyo secondary labadaba soo bartay haddii la fiiriyo hay'adda waxqabadkeeda iyo care waa barnaamij weyn barnaamijkaas laakiin care waxay imaatay maanta waxay bixinayeen dirgaamo ay siinayeen dadka bulbakti iyo saabuuno inkastoo UNHCR bariyaan saabuun distribution ay ka bixinin care waxay bixinaysay basol saabuun ay bixinaysay wafdiyaa u imaaday maanta waxay kasoo bilowday kaararka waaweyn bariyaan dhan saabuun iyo waxay bixinaysay caagag ay ku qoran yihiin care ay doonagaraysay care way joogtaa tan kale qaxootiga waxay siisay haamana ay siisay oo biyo lagu shubo waxaa kale ay siisay musqulo sidaa ogtihiinba care musqulo sayd ay u bixin jirtay waa ogtihiin waxaa kaloo jira care maanta wafdigaasi wuxuu imaaday in uu kuurgalo warbixinta dadka qaxootiga cusub wixii ay u baahan yihiin waxay ka aaminsan yihiin care maadaama xagga loo raro ifatu waxyaabaha ugu muhiimsan ay u baahan yihiin ayaa loo imaaday journalista la socday oo warbixinada ka duugayay dadkaasna maanta si fiican waxay u qaateen 7 ayuu marayaa ilaa kuul waa la geyn doonaa buulbakti dhanna waa la siin doonaa caagagaas care way socotaa hadda waxay ka bilowday dhinacan f xaggeeda ka bilowday waxay u socon rabtaa dhinacan f0 xaggeeda u soconaysaa dhammaan buulbaktina waa la qori doonaa waa loo imaan doonaa hay'adda carena way siin doontaa caagagaas iyo saabuuntana waa la siin doonaa cid allaala ciddii buulbakti degan way heli doontaa nin kasta meeshiisa ku sugo shaqaala care oo hajiin promota u imaan doono halkaasaa lagu qori doonaa marka care maanta ilaa 9 sac waxay la joogtay dadkii wareysanaysay biyo bay dadkii u geysay oo maanta oo biyo dhaansadeen maadaama dadka badana hay'adda care hadda biyaha ay joogin oo hay'ad biswin ay joogto ka qaaditaankii in badan oo laga qaaday hay'adda care biyihii caqabad badan ay ka imaatay caqabadaas qaxooti dhan bay saameysay laakiin dadweynaha way u bisil yihiin maadaama ay yihiin dad qaarkood guuray 2017kii oo kale ifatuud deganaa oo dib u baxay soo laabtay way ogyihiin waxqabadka care maadaama ay ka shaqeyn jirtay ifo 2 raashinka ay joogi jirtay biyo ay joogi jirtay hadda nafteeda ifo 2 hay'adaha degaya ayay ka mid tahay hay'adda care waxay degi doontaa meesha raashinka ayay bixin doontaa ifo 2 raashinka waxaa ka bixin doona hay'adda care international ayaa ka bixin doonto marka barnaamij ayaan ka sameyn doonaa hay'adda care iyo waxqabadkeedii iyo qaxootiga waxay u qabatay barnaamij dheer ayaan ka sameyn doonaa insha allah arrinta buufiska baryahan asbuuc hore lasoo dhaafay asbuucanba xerooyinka dhadhaaf waxaa ka socday second phase waxaa la dhaho
xerada dhagaxley dad badan oo Scarface maray asbuuc hadda lasoo dhaafay dad badan ayaa Scarface lagu wacay Scarface imtixaan ay u mareen maanta dad baa maray Scarface qoysaska first Scarface marayay marka Scarface hadda ka socdo xerooyinka dhadhaab buufsi kala marka dad badan haddii lagugu waco buufis waxaa lagaga baahan yahay wax kasta oo adiga aad leedahay mise document ama document waxaa la lahaa waxyaabaha muhiimka ah sida dhalashada warqadda guurka warqadda furitaanka warqado badan oo muhiim ayaa jira dhalashada cunuga oo kale waxaa jira kaarkaaga manifestkaaga waxaa dhan in hor usoo qaadataa loo baahan yahay waxaa hadda haysanina in aad dowladda u tagto mise UNHCR u tagto aad samaysato aad hagaajisato marka dad badan waxaa kuma baraarugsano in documentigooda lasoo qaato UN ku socota laakiin document ma soo qaadin iska imaanaysa waxaas aqalgal maaha marka dadka waxaan u sheegayaa haddii lagu waco buufs lagu waco documentigaadii waxaadii hor u qaado Scarface-kaas ka socda xerooyinka dhadhaab beryahan Scarface-kaas kacsan Scarface-kaasna warar hoos aan helayo wuxuu yahay dadka marinayeen in dadkaasi loo qaadan doono dalka Mareykanka uu joogo uu qaadan doono dadkaasi ayaa warbixin hoose aan helay ay tilmaamaysaa marka arrinta buufiska sidaa ogtihiin baa buufis xerooyinka dhadhaab said ugu yaryahay dad badan oo lagu waco bariskeliin lama mariy iyo waxyaabo yar saas ka jira iyo dad caafimaad toos ma jiro ayaana soo ogeydeen tan koro intii soonka bilaan ayaana said u socotay oo dad ayaana loo qaaday lasoo celinayay marka waxyaabaha muhiimka ah waxay yihiin in qofkii la waco uu tago meeshii si loo waco wixii warbixin laga rabo iyo detail laga rabo uu u tago u baahan ayaa muhiim ah marka sidaa ogtihiin ba sidii hore ahaan jirtay buufiska ma ahan oo said buufis uma socdo oo basaska lagu daldali jiray iyo warbixin arrintaas ma jirto marka gaabis buufiska laakiin waxaa loo baahan yahay weli ma dhammaan laakiin wax baa socda weli wax baa raja jirta weli wax baa socda inkastoo xerooyinka dhadhaab beryahan said uu roob uga da'ay maasha allah alxamdulilah roob baa said nooga da'ay marka insha allah warbixinihii kasoo kordho arrimahaas buufiska iyo arrimaha diiwaangelinta iyo wax kasta oo ku cusub xerooyinka dhadhaab halkan ayaan kusoo gudbinayna inkastoo ramadaan iska tahay beryahan ramadaanka aan iskaga jirnay quraan aan soo gudbinayni tartanka quraanka xerooyinka dhadhaab aan soo gudbinayni marka insha allah khayrka hala daawado insha allah meeshii ugu dambeysa la joogo ramadaan insha allah waxaan dadaarmayna insha allah in taajidka la dukado insha allah waxaan iskugu imaan doonaa insha allah markii aan warbixin helno halkan ayaan kusoo gudbin doonaa salaam asxaabta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu